xafladan oo si weyn loo soo agaasimay waxa ay ka dhacday gudaha magaaladan Boorama waxaana lagu sagootinayay ardayda sanadan ka qalin jabinaysa fasalada afraad ee dugsiga sare ee Ardaale ee gudaha magaaladan Boorama ku yaala waxaana xafladan ka soo qayb galay gudoonka waxbarashada ee gobolka Nowdal xogayaha dawladda hoose ee degmadan Boorama gudoomiyaha shirkadda isgaarsiinta Telesom ee goboladan Awdal iyo Salal xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka cusub ee degmadan Boorama suldaanka guud ee dhalinyarada Soomaaliland uqaal waxgarad aqoon-yahano diin iyo arday aad u tiro badan waxaana ugu horeen xafladan ka hadlay maamulaha dugsiga sare ee Ardaale ee Boorama ku yaala mudane Faysal Maxamuud Gaafane waxa uu ka sheekeeyay marxaladihii kala duwanaa ee dugsiga sare ee Ardaale uu soo maray iyo ardayda fasalada afraad ee sanadan ka qalin jabinaysa dugsigaasi wuxuu ka kooban yahay 9 fasal sanadka marka foorada ka qalin jabinaysa dugsiga waxay ka kooban yihiin 200 iyo laba arday iyo kooban dugsiga sare ee Ardaale waa dugsiga labaad ee secretariada gobolka ugu tira badan qalinjabinta sanadka foorada hadda waxaan keenayaa inaan noqono dugsiga ugu tira badan ee ka qalinjabiya gobolka Awdal insha Allah suldaan daahir caateeye oo kamid ah ardayda sanadan ka qalin jabinaysa dugsiga sare ee Ardaale ee Boorama ku yaala oo isaguna ku hadlay afka ardayda qalin jabinaysa ayaa waxa uu cabiray dareenkooda suldaanka guud ee dhalinyarada Soomaaliland suldaan Cabdiraxmaan Axmed Sheekh Maxamed gudoomiyaha shirkadda isgaarsiinta Telesom ee goboladan Awdal iyo Salal Xaaji Cabdiqaadir Aadan Nuur xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmadan Boorama iyo mas'uul ka socday gudoonka waxbarashada ee gobolka Nowdal oo iyaguna xafladan intii ay socotay ka hadlay ayaa waxay ammaan u soo jeediyeen ardayda fasalada afraad ee sanadan ka qalin jabinaysa dugsiga sare ee Ardaale ee Boorama ku yaala iyagoo maamulka dugsigaasina ugu mahadceliyay sida aan hagrashada lahayn oo ay ardaydan ugu hagar baxeen intii ay wax ku baranayeen dugsigaasi xogayaha dawladda hoose ee degmadan Boorama Maxamed Cabdi Xaashi Xamari oo isaguna xafladan ka hadlay ayaa waxa uu ku baraarujiyay ardayda sanadan ka qalin jabinaysa dugsiga sare ee Ardaale ee Boorama ku yaala inay si horumariyaan waxbarashadooda ilaa heer jaamacadeed runtii waxaan dareemayaa ama arkayaa in fursad ka badan fursadihii aan anagu markii aan ka qalin jabinaynay dugsiga sare fursad ka qiimo badan inaad hesheen in dadkii ka duwan yahay oo uu ka ilbaxsan yahay ama ka indheer yahay oo annaga aqoontayada iyo iishayadu waxay ku ekeedu buugka macallinku la siiyo iyo waxa sabuuradana loogu qorayno buuggan textbooka aan ku qorano laakiin maanta indhihiinu indhahayagii waqtigaa way ka dheeryihiin oo caalamkii oo dhan baa global gabagabadii xafladan waxaa shahaado sharaf iyo abaalmarino kala duwan lagu gudoonsiiyay ardayda dugsiga sare ee Ardaale sanadan ka qalin jabinaysa qaarkood maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi iyo dad loo aqoonsaday inay horumarka dugsigan qayb lixaad leh ka ciyaareen qaar kamid ah ardayda sanadan ka qalin jabinaysa dugsiga sare ee Ardaale ee Boorama ku yaala ayaa gabagabadii xafladan waxay cabireen dareenkooda عبد الفتاح أحمد مقالة بورما.